أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا قرح بدن لك وحرن جنال كيغ مناس جنال ميل بادون كجوجتان إن أي وضع عافمات قبتان هرجينا فضلا دانو بعصب تاي جنال سبسكرايب نوصار هدا هورنو لجوج جرتينه مقالك لايك نوصار إلا ونا قبلك فرطو سي فيديو بأسو فيديو كوك صورها أم باو نقطة داودا أبوري أتي أدامات سنتين أيدي اللي سيدونا كسنا إلا سعطان مرة بكومنتيدي نقرح بدن لك دعوينك ديركلت سكر جزاكم الله خيرنا عيد الله من لا يشكر الناس لا يشكر الله ومركل يمقالك العصب يمركل يقص كلام عصب وحال قصله قصده دين وضو أقصل بضم فاتن أصحابه قصل أسوري ريحه مركي أنت أنا قصديني وجود كريم أقصر النبي محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما تقص عصوا دين وضع أصحابه يعني محن رجينا قصينا كهلي دونتان فضلا تاكيشان مقالك لايك بدن إيسارة أفرتن كون إيجارسية سبسكرايب فريوا لايك فريوا شيرتنا فريوا فيديو جنداوشيس فريوا فري كسار من فانتي وحولبو مركي قصنا وحي كل عذا ورتا وحي كل عذا مركو قصنا ودمada عرفت ودن كمد أي كل عذا مركا ما كان وحي قصك إيسوها من فانتي مركا أديك دميستو قصة سلا وأركتاي إيو سيدي وقلتاي كومنتي نقول سو ذات مركا قصنا وحي كل عذا ودمada عرفت مد كمد أي كل عذا waxaa jiray qoys nin iyo naag isqabo waxayna haysteen caruur fara badan marka ninkii naagta isqabana sidoo kale waxay ahaayeen ilmo adeera ah gabadhan adeerkiisa ayaa dhalay uu doontay waa la siiyay muddo waxay isla noolaayeen adiga taqriiban 20 sano ay isla noolaayeen ayadoo gabar yar oo soo guursaday gabadha marka ninkeedan aad iyo aad u jeclayd asagana sidoo kale xaaskiisa aad iyo aad u jeclaa waxay ahayd gabar fiican afgaaban hool karmeed ah dariska xitaa ay jecel yihiin waxaa ku dhahay naag waxaa ku dhahay nimanka dhan xitaa yaa iska niyeysanaya inay naagtooda ahaato ay ahayd gabadha marka waxaa dhacday gabar xaafada degan oo gabar yar ah oo 20 sano jirto sidoo kalena rajo ah aabeed soo korsaday ayaa waxaa dhacday markii ninkii guursaday ayada oo gabar yar ah oo wali waqti yar la qabay in uu geeriyooday gabar yarna way u dhashay marka gabadha ayada waa rajo aabeed soo korsaday gabadha ay dhashayna waa agoon oo ninkii ayaa ka dhintay markii muddo yar uu qabay gabadhii markana si daradaas ku dhacday gabadha marka ninka qabo gabadhaas ay mar walba xanuunsanaysaa xaaladeeda iyo nasiibkeeda sida oo noqdo xeelada ma istaasho ayadoo intaan yacni da'deeda ay tahay gabar yar tahay inay asaay qaaday oo nin aan haysanin nolol mugdiya ku jirto aad iyo aad uga xumaha yacni inay ka xuntay ninkeeda uga sheekeynaysa u dareensiinaysa waxay leedahay gabar qurux badan oo kaaliska aragoo joogii jamaal ilaahay u dhaliyay waaye niman fara badan soo doonteen nin walba soo doontan way diidaa oo waxay dhahdaa sida hadda dhalinyaradoo kale inta wixii ayada aadeeda ah waxay leedahay nimankan waa niman yar yar ah waa niman waliba shabaabnimadii aan ka bixin ima geeyaan oo ima qalmaanay leedahay sidoo kale inta nimanka waaweynka markii ay soo doontaan waxay leedahay nimankan zaa'id ay iga weyn mar walba waxay dhahdaa nin aniga 20 sano oo kale iga weyn ayaan jeclahay inaan guursado haddii aan guursanaayo marka waxay dhihi jirtay gabadhaas aad iyo aad ayaa nolosheeda iyo waxa ku dhaca uga xumahay ninkeeda markay sheekada uga sheekeysa gabadhan ayada ay dariska yihiin asagana sidoo kale yani emotional yani dareenkiisa yani xanuun uu dareemaa gabadhaas waxyaabihii ku dhacay in yani xaaskiisa ay ka xuntaa asagana sidoo kale uu ka xun yahay maalin ilaahay keeno way uga sheekeysaa waxay leedahay maanta waa israacnay waa baxnay way soo adeegatay dhar noocaas ay soo adeegatay maasha Allah markay dharka gashatay quruux kaale iska arag naagtii maalmo qiyaaligeeda uga sheekeynaysa ay sida ay tahay iyo dharka xiranayso iyo sida ay u taalo ninkii waxa dhacday marka naagtaan inay ka dhaxbaxday maalmo looga sheekeynaa waligiisana ma arkin marka asaga gabadha xaafad uu degan yahay laakiinse gabadha ma qabiyo guri ma ka soo baxday waligiisa ma arkin ninkii waxa dhacday in gabadha ay u soo sawirmayso habeenkii markii la seexdo ay qofta iska qoorinayso ninka waxa u soo sawirmaysa gabadhii qaabka looga sheekeynayo quruxdeedii dharka ay soo gadanayaan ayada oo wadato wax yacni qiyaali ah meesha aaba joogin aan ninkan habeen iyo maalin oo kuriyoonoya ninka marka gabadhiya ka daadegi wayso wuxuu dhahay laasim gabadha waa inaa guursataa da'da ay raadinayso ninka markaas yani da'diisa ay rabtay ay raadinayso waaba da'da adiga aad jirto dhahay ninkan ilmo qaangaar ah u jooga ilmihiisa qaangaar waaye gabadhan hadda uu qaba xaaska ah ayada oo yar uu guursa asagana da'diisa waa dhoori 40 jir waaye ayadana da'deeda markaas dhoori 30 jir waa adiga xogaa yara labadooda aad ahaan yani isku dhaxaysa marka ninkii waxa dhacday gabadhii inay ka dhax baxday habeenay maalinba oo ka seexanaynin biyo oo ka dhax arkay qof aan waligeed la arkin waaya
kaliya sheekadeedii iyo siday u taal iyo dabeecadeedii iyo quruxdeedii aaba dhex qaadaybo ninka wuxuu go'aan ku gaaray ilaa waa inuu gabadhaas guursadaa markaasaa wuxuu isdhahay talow nin hoose ku guursanaysaa waa gabadha xaasaa qabtaa xaaskaada haddii ay ogaatay inaad naag kale aa rabtid weliba gabadha ay mar walba kaaga sheekaysay inaad rabtid hawdaaday kicinaysaa ee maxaa sameynaysaa ninkii fikiroo bilaabay intay ka bilowdaa maxaa ku marmarsiyotaa gabadhaasna waa rabtaay ragnimo iska raadiyay ninkan iyo geesinimo wuxuu isdhahay wixii dhacaay ha ka dhaco haddii aad guursatid xaaskaaga haddii ogaato waxay ku leedahay ifur ama maxay ahayto gurigeeday ku joogaysaa oo qadaa waqadar ha ku noqoto sheekada waa sheeko dhacday ha iskaga dulqaadato labadaas midkood ayay ku noolaanaysaa ayuu isdhahay ee gabadhi doono abuhelo marka xaaskiisu aan ogeen oo gadaasheeda ka baxay wuxuu aaday gabadhii aabaheeda u tagay markaasaa wuxuu dhahay xaajiga soo dhawaa gabadhaada waa arkay in gabar oo ay tahay gabar yar oo qurux badan oo yacni edab leh oo doorsoon oo haddana maxay hayto ninkeedii geeriyooday gabar yarna haysato sida ay rabta anigaa ku rabo inaan ku guursadaa rabaa ee inaan isiisidaa rabaa ninkii gabadha laga doontay waaye intuu xanaaqa u istaaga wuxuu dhahay waryaa waa edab daran tahay aniga maa saasay leedahay gabadheedii waa ogahay inay tahay gabar yar ayadoo gabar yar ay tahana waqtigeedii iyo maxay hayto yacni qadartii ay ku dhacday ninkeedii uu ku geeriyooday umana baahna inaa adiga guursatid sababta aa gabadheeda usoo doonata maxay tahay naagtii bilaayaa qabtaa oo gabadhaas yacni kun gabar xitaa aanu u dhigmin dabeecadeeda howlkartinimadeeda afgaabnideeda edabteeda dadka xaafadda degan oo dhan ay wada jecel yihiin sidee naag kaleenta u haweysatay inaa ola guursato wuxuu dhahay adiga nin maba tihidbo naagta intaasoo sano oo kula soo ceeshayso carruurtaas haweenka a ku dhashay hadda waxaa go-aansatay inaa gadaasheeda yacni kasoo baxdo oo aa gabar soo doonato wuxuu dhahay aniga gabar maku siinaya ee gurigeyga iga bax ninkii waa lasoo kalbeeyey waxaana la dhahay gabadheeda nin naag qabo ma guursanayso nin free ah oo ayada keligeed qaas u ah ayayna guursanaysaa haddii ay guursanayso abuheelo waa soo baxay gurigiisa oo kusoo noqday wuxuu isdhahay talo maxaa samaysaa ninkii gabadha dhalin wuxuu ku dhahay gabadheeda waxaa ku daraa nin yacni oo single ah oo wax xaasa aana lahayn gabadheeda xaasa aan lala guursanaynin aana minyaro laga dhigaynin min weyn iyo minyarba ayadayna isku ahaato ayaan rabaa ninkii marka wuxuu bilaabay inuu fikiro wuxuu isdhahay xariiftaansa iskaga furtaa waa xariiftaansa u furi lahayd falkeeda keen gabadhii waa gabar fiican oo xitaa dariska ay jecel yihiin waaye dadka kale markii laga soo talay xitaa dariskaa jecel yacni ninkeedana xaalad walbo way la soo qaadatay cimrigeeda kale barkiisana way la nooleed ilmo waaweyn oo maasha allah tabaarakallah oo kaal iska aragna way u dhashay maalinna erey xun ma dhixin marka ninkan wax uu ku shirtago rabaa ilaa furiinka waa ku fura af soomaali ma noqonaya mogtahay wuxuu ku shirtago oo yacni uu ku furuu rabaa ninkiisa u fikiraya wuxuu dhahay banaanka ma ka furtaa intaa ka tagto oo ku furay ma dhahda haddana wuxuu dhahay macquul ma noqonayso sidoo kale gabadha ilma adeerana waa yihiin ninka xal marka raadiyo isdhahay ninkan xalkii iyo maskaxdiisii oo tuujiyey waxaa uga soo baxday in uu iska dhiga habeenkii oo u jilo in balaayo ay kusoo degto ninkan oo wax ay kasoo dhex qeylinayaan uu leeyahay yacni xaaskeyga waa jeclahay ma furaay afaarahaas uu soo dhegsaday wuxuu dhahay waayahay arrinta ku dhaqaaq habeenkii aa la gaaray waa la seexday markii sidaas loo seexday ninkaas saqdhex markii la maraayo waa kasoo qarway soo qayliyay waridaaya wariga baxa maxay garabteen xaaskeyga waa jeclahay ma furaay ilmeyga hooyadood waahay intaasoo sanaa la noolaa habarteeda ka taa inaa furo ninkii waali oo isku riday gabadhii waa soo kacday ilaa maskiin waa maxay ogtahay way soo kacday hafay soo dhahday biyo soo qaaday war biyahan cab maxaa kugu dhacay gabadhi waxaa ku dhac quraan saar saliga nabiga saar ayad kursi saar ilaa nin soo jeedo waxay u malaysaa nin hurdooy u malaysaa ninka waaba soo jeediyaa markaasaa wuxuu dhahay ma aqaano waxyaabaa iga cabsiina waxyaabaa iga soo dhex qiiqeylina ninkii marka wuxuu arrintii ka dhigay routiinoo ka dhigay habeen walba saacadis markii la gaaro waxbaa iga soo dhex qeylina oo leeyahay naagteeda ma furaay naagteeda waa jeclahay naagteeda ilmeyga hooyadooda waay ma laga yaaba inaan furo waa lay ilaastay naagtaa laygu cowray naagteeda fiicnaanteeda dadka arki waayeen gurigeyga quruxdiisa iyo noloshiisaa lee quuri waay balaayo gabadhi weeyaad markaasa waxay dhahday walaalo saanta lama noqoto habeen walbe sheekh aan ku geey ruqay sharciyaha lagu soo aqriyo markaasa wuxuu dhahay anaa isku aqrinayo meel lama aadayo aniga dadkii inaa isku dhex ceebeeya ma rabo anaa isku aqrinayo waayay tiri
ninkii arinta ma joojinooyo mar walba wadiya markaas waxay tir saan xal ma noqonaysa walaalo maxaa sameynayna markaas wuxuu dhahay walaalo caafimaadkayga wax uu ku jiro inaa sameeysid taas yani wuxuu dhahay lama huraan waaye inaa sameysaan jecla aniga saan ku noolaan karo nolol ima noqon karto habeen walba insaan leeg soo dhax qayliyo oo hurdadii lay diido oo joog iyo maxay to yani jiif balay diido dhibaato waaye caafimaadkayga iyo noloshayda wax walba ka muhiimsan markaas waxay tir run waaye tir caafimaadkaaga iyo noloshaada wax walba ku muhiimsan aniga waa ku jeclay tir inaa ku waayana ma rabo ee maxaa sameynaa wuxuu dhahay waxaan ahay waa il iyo dadka afkoodiya igaaray sababtoo ah jaceylka adiga aan kuu qabo iyo nolosheeni iyo waxyaabahaas ay dadka ka masiirsan yihiin in aan ku furana moogii si kalenta ishaan iyo waxyaabaha ma iga baxayaan ee marka waxaan rabaa oo yiri caafimaadkayga maadaama uu ku jiro inaan ku furo gabadhu waxay dhahdaa ma ay fureysaa intaasoo sana isla nooleen macaan iyo qaraar nolosha isla soo qaadanay ilmeena maanta ay weyn yihiin waxay dhahdaa kacmo ku dhihin kirmo ku dhihin eray xunmo ku dhihin maxaa sidee igu fureysaa markaas wuxuu dhahay waa ogahay aniga waa ka xumahay maanta inaan hadalkaas aan ku dhaho ama afkayga aan kasoo dhawaajiyo laakiinse caafimaadkiya meeshaas naga galay maxaa sameynaa waay markaas waxay tiri hadii adiga aad ku kalsoontahay oo caafimaadkaagan oo ku jiray dhahday caafimaadkaaga wax walba iga muhiimsan marka wuxuu sii raacay muddada dadka yani ha ogaadaan iyo xaasidiinta iyo waxyaabahan aniga dhex qeylinaya ha ogaadaan inaan ku furay cuddada inta markaas ay socoto aysan dhammaanina rajactiyan ku dhaw kusoo noqsanaa saasaa marka uu gabadhii uu ku qanciyey wuxuu dhahay waana ka xumaa sidii uu gabadhi ku furay markuu furay kadib hadda reerkeedii iska aad gabadhii way baxday ninkan muddo bilooyin oo dhacdhac kasoo siiyey bahashii cuddadin way dhamaatay abuuheelo waa baxyay waa isxilqaamay wuxuu u noqday gabadhii oo doonanayay oo ayada ahayd oo ninkan kasoo dhex booday ooba rabaa gabadhaas inuu arko inuu guursadayba uga dhagan tahaybo waa soo baxay gabadha aabeedoo u tagay markaas wuxuu dhahay mar labaad ma ay kusoo noqotay haa uu dhahay anaa mar labaad kusoo noqday gabadhaadi yaa rabaa shalay wejiga ku imaada wejiga bedelnaa maanta kugu imaada shalay waxaa qof xaas ah oo xaas lahaa maanta waxaa qof single ah oo xaaskiisa ay kala soo tageen wax walbana waa ogtahay waxaa rabaa gabadhaadi inaan guursado oo aa isiiso ninkii wuxuu dhahay gabadheeda waxaa isku dayayo yiri xitaa mararka qaar in aan ku siiyo maadaama yani shareecada islaamka ee afar ku baneysay waa isdhahayo dhaa laakiin hadda markii xaaskaagii aa furtay oo intaasoo sana aa la nooleed oo ilmahaaga hooyadood ah oo gabar afgaaban ahayd oo weligeed khalad aana kaa gelin oo aa furtay wuxuu dhahay asbaab aa kugu siinaya gabadheeda aa ku aroosaysid maba jirtaba ninkii naagta intaas cimrigiisa lasoo qaadatay hadda furay naag uu rabo darteeda darinteyda wuxuu dhahay tukalentaa baranaysaa banaanka uga tagaysaa maba istaagishdo yir gabadheeda inaa kugu daro albaabkayga baxaa lahay ninkii jackuleelaa kusoo dhigtaa ku dhahay korkiisa meesha la saro dhiig tas ma kasoo dhahay ciil cunaha kala go-ay markaasaa wuxuu dhahay sheekadan aa samaysayn wuxuu yiri xaaskaaga waa u sheegaa in gabadheedii hadda kahor iga soo doonatay oo aan ku diiday oo haddana sababteedii aa usoo furtay xaaskaadii oo mar labaad ay ugu soo noqotay calaa itixaal kir iyo kacaan kusoo kala tagay meesha ninkan waa soo baxay gurigiisa oo imaaday wuxuu dhahay maanta khasaaro cabdi khasaaro maqli jirteen cabdi khasaaro caadi oo ninka noqday naagtiisa ma haayo too doonta ma haayo wuxuu haay malo yani wuu faramaran yahay eber waa wuxuu haay malo markaasaa wuxuu is dhahay tanna ku diiday taasna ku daysaya waxaa samaysaa naag kale bal raadi oo labadaa naagba aa ku ilaawdid noloshoodii iyo fikirkoodii iyo waxyaabaha barbalemka hadda kugu furmay aa ku ilaawdid bal raadi is dhahay waxaan ku dhahay xaafadda ninkii meel uusan gelin malaho uusan gabar ka doonan ninkan mar walba oo gabar doonto gabadha waa loo soo diidaa gabadha markoo doonto waa loo soo diidaa ninkan waxaa ku dhacday arrin qof bini aadana aysanba ku dhicinbo soo meel walba madax ugu soo garaacay meel walba madax ugu soo garaacay naag walba oo aadi loo diidaay ay nolosha ku adkaatay jiq ay ku noqotay nin hadda intaasoo sano famil aha oo xaas laha oo caruur laha nolosha ku noolaa waa dareemi kartiin hadda singalnimo in uu ku noolaado yani way ku adagtahay nolosheedii wuxuu is dhahay niyow kaagama sokayso oo naagtaadii inaa aadid kaagama sokayso bal ayada iska soo tuutuugay ee ku noqso go-aanoo soo qaatay waa soo baxay maalinkii yaa la gaaray adiga wuxuu soo aaday gabadhii gurigooda soo aaday waxaa jira marka gabadha wiil la dhashay oo guriga degnaa oo guriga xaas ku qabay albaabka asaa ka furay hore soo dhaaf war soo gal seedigaygii hore xaaladaada ka waran caafimaadkaaga ka waran inaa xanuunsataa ogaada balaayo inay kaasoo dhex qaylisay jiniyaal iyo il iyo af iyo balaayo inay isku kaa tagtaa maqlee bal sidee tahay xaalkaaga iga war markaasa wuxuu dhaha warniyaho alxamdulilah hadda waa fiicanahay taa maray wuxuu yiri sheekay u baahantoo dhahay
waxa uu dhahay si xun aa lay qabtay habeenkii saasaa laga soo qeylnaa naagteedii aa lagu diray wuxuu dhahay markii aan furay ee wixiina iga baxeen uu dhahay marka hadda waxaa rabaa xaaskaygii in aan noqsado oo yacni aan ku noqsado oo aan guursado ninkii seediga ahaa ee gabadha la dhashtaa intuu qosol waa kala wareegaa dhahay soo u qoslay waxaa ku dhahaya indhihiisa ilnaa soo deysay markaasa wuxuu dhahay niyo maxaa ku qoslaysaa maxaa kugu dhacay ma waalatay maxaa miir ma laha miya yacni ma caafimaad qabtid miya markaasa wuxuu dhahay waa caafimaad qaba yiri adiga waa kaa caafimaad qaba jigjaga uu yiri gabadha shalayto dhahday waa layga soo dhex qaylinoyaa balaaya igu dhacday ilaa igu dhacday dada iga soo qaylinoyaa waxaa la ilaystay maxay ahayd gurigeeni farxadeeni nolosheeni yaa la ilaystay kadibna u jisheeyaa waa ku furaa ciddada dhexdeeda kugu soo noqsana dhahday waxaasoo dhan wuxuu dhahay dameerwada warkaaga kaa soo horeeyay maqli jirteen ninkan waxaa la warkaaga kaa soo horeeyay inaa gabadhii hiblaaye ahayd aad doonatay aabeed kuu soo diiday gabadh walaasheena usoo furtay ku noqotay oo haddana lagu diiday wuxuu dhahay marka waa ka xumoo yiri shalayto kaskaaga ku furtoo yiri walaashay oo dhahay haddana caqligaaga waxaa artamaya kaskaaga inaa ku guursid lagama yaabo yiri gabadh daday ka dhalatay walaalay leedahoo dhahay marka ma ahan oo yiri shay markaa ridna aa qaadanaysid markaana cidna aa soo tuuraysid ma ahan allahay niho baska day gabadhaan midda kaleento waxaa lahay tan ugu darana waxay sii tahay mataqaaniin gabadhaan waxaa lahay sidoo kaleento mar dhowaa la guursara waa ninay u joogtaa oo soo doontay yaa soo doontay naagteed yaa soo doonan karaa nima ani ahayn maba jirabo maba guursanayo nolol lama wadaagi karto mana jeclo qalbigeedana ma u furi karto waxaa la warkaas warkii hore waxaas waa la iskala dagaalanayo adiga waxaa ku nooshaa la riya ku jirta la riyada iskaga kac riyada ma shaqeynaysa iskaga kac la riyada riya jirta ma ahan nin gabadhan waxaa soo doontay ninkii adiga gabadhiisa doonatay soo doontay ninkii waaga ku bariyay ninkii gabadha usoo diiday ee gabadha oo ka doontay ee dhahay xaas qurux badan qabtaa gurigaaga dhaqo joog niyo si walba u waani ee diiday haddana furay ee ku noqday isla ninkii xaaskiisa soo doontay oo reerkoodiina siiyeen u joogta u guursaraba ninkii waa kan kala wareegtay qayliyay yaa dhahay ninkaas oo khiyaanoolo waay awalba naagteedoo rabay naagtaan adiga kaa furalla qof maa jiraa inta madaxa biskoola kaa saartay ku dhahday naagtaan fur anaa guursanaa ku dhahay maa jiro waa maya marka wuxuu dhahay niyahow adaa shalay go-aankan gaartay sheekadan adaa ka qasatay raganimada iyo kurajada ku samaysay yeelaa la dhaha adkeyso hore lahaw ama afeefo damba lahaw marka wuxuu dhahay waxba hadda ha calaacalin warkan waa kaa tagay sheekadan yacni niyahow macawiista waa kaa dhacdaa laha si kaleent wax ku raadiy maca salaama ninka waa kasoo xanaaqa soo orday wuxuu soo aaday ninkii uu gabadha ka doonanayo oo haddana naagtiisa guursan rabo wuxuu dhahay war nin fiican ma tihid adiima sharafaad tahay nin sharaf le ma tihid gurigeygii naagteeda iisoo dib martay markaasaa wuxuu dhahay waryaa edabiyee loo dhahayno naagteeda ha dhihin alla naagti aan furay dheh ama naagtii hore qabi jirnay naagteeda haba dhihin alla hadda naagtaada ma ahan mar dhow anay naagteeda noqo rabtaa ninkii waxaa ku dhaha qac caadiya ka yeertay wuxuu dhahay si xunaa ii gashay jilaafa ii dhigtay wuxuu dhahay waxaan kuu dhigi malaho nin naagtaas yacni wanaagaas leh waddo oga tagay qofka diidayaa waa yiri waa dhayman dhul haddii la dhigo dhul ma dhaceysoo yiri xitaa haddii 100 sano ay gaarto naagtada dhul maba dhaceysoo dhahno aniga wuxuu dhahay intaasoo sano ma guursanoo dhahay xaas gabadheedaan kursanaya haddana wuxuu dhahay ayadaa siitiyaaba guursanaa u dhaha nolol la sameynaa u dhahay ilmaheedii waxeedana isku qaadanaa ninkii xanaaq cunaha kala go-ay korkiisa meel la saro dhiig ma kasoo baxaa waa soo orotay telefoonoo qabsaday wiilkiisa weynka curudkoo waca markaasa wuxuu dhaha hooyada waxay sameynaysa ma ka wareysaa maxay sameynaysaa aaba hooyada nin heblo ahaa ee guursanoosaa ee ka celi waayo ma dhici kara dha arooskaas markaas wuxuu dhahay aaba sababtaa u dhahay maxay taa hooyaday adaa furay adaa ka tagay waxaa ku fikirtay inaa nolol kale samaysatid noloshiina way kuu noqon weysa nasiibkaaga xumaaday oo way ku suurtageli weysay hooyadii hadday nolol samaysanayso waa ku faraxsanna waana soo dhaweynaynaa waa adeerku cusub odaygii waxaa ku dhawaaba si bul looba sii dhaha hor loogu sii halcaybo wuxuu dhahay adigana hooyadaa la safatay miya garabkeedaa tahay miya markuu wiilka arkay aabihii inuusan warka go-een oo jaqjaqjaqdaas ahay telefoonku iskaga damiyey ninkii waxaa ku dhaha wuxuu soo fadhiistay meel cidla ah naagtiisii la guursay caruurtiisii nin kale muxuu ahaye hadda maanta ay kasoo hoos kacayeen hal guri isla degan yihiin tii intaasoo rafaad u galana waaye waxaan ku dhahay meel cad uu soo fadhiistay marka fudeedka badan ma fiicno marka walaalay quruxda badan la qisadaas ay qisada maanta aad jeclaysteen idin la sheer garaa idin dhaay qosla isoo riixoya bal adiga qisadaas sidee u aragtay waaye muuqaalkan haddaa ka heshay laagta noo saar haddaan u cusubtaan subscribe na soo dhig gamalka furo si video walba uu ku soo gaaro
aan soo gelino wixii ra'yigana hoos igu reeb waxa isleedin gabadha marka horeba ayada ninkeeda naagtaan bartay saas ayuu ku guursamay isleedin mise qaladka asaga ayaa lugihiisa ku raadsaday markii taa muuqaalkan mid lamid ah kulmi doono. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi